gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar ahna ku siinaha gudoomiyaha gobolka Saraar Nuur Qaasim Qodax oo wareysi khaas ah siiyay telefishinka caalamiga ee gobolnimo ayaa wuxuu ka warbixiyay guud ahaanba gobolka Saraar iyo horumarka ka tisqaaday waxaana uu ugu baaqay guud ahaanba shacabka ku nool gobolka Saraar iyo degmada Caynaba inay gacmaha isu qabsadaan si uga mara dhalan lahayd si degmadu u heli lahayd biyo macaan maadaama biyo qara noqdeen markii xukuumadda eegtay in aan la helin biyo macaan oo la soo jiido gobolka loo soo jiido waxa ay doontay in ay iyadu isku tashado la sameeyo biyo qabatin way qoday waa la qoday riig eelba waxa la qoday daam weyn rabarkiisna imika uu yaalaa waa la dhigaya dhalinyarada degmada iyo maamulka dowladda hoose ayaa ka howlgalay wasaaradda biyuhuna waxay dhigtay daam aad u weyn isagu ay halkan ka samaysay dhagaxii dhigtay kaasuna imika kambanigii qaatay laga doonaya inuu qodo biyihi macaanaa maadaama sidii kale loo waayey in biyaha la qabto soconaya yaa talagalku imika weeyaan ilaa inta la helayo riig dheer oo gaadho bal haddii biyada inaga hooseeyaan macaani biyo way inaga hooseeyaan oo meel dhowaa lagu gaadhaya ma garat lagu gaadhaya laakiin in biyo macaan inaga hooseeyaan riigii lagu baadhaa ma sugaynaa laakiin wax kale oo maanta halkaas dowladdu iska qartay ama xukuumaddu iska qartay ma jirto waayahay dadkan barakacayaasha ah oo dadka abaarta soo hoysay inta ay abaarta dadka soo hoysayna dadka halkan u yaalleen ummaddan ilaahay bartu kor baatir karaya oo qofka ummaddan ilaahay abuurtay shakhsi la oran karayo ummaddan wax uu tari karaya ma jiro raxmaanku wax tari karaya tastawi talabaad dii qorshe meesha ku yaala mar wixii ilaahay u keeno in lagu siiyo lagu kala hagaajiyo ay meesha ku yaalaan haddii ogsano hay'adan oo hay'adda barakacayaasha qaxootiga la yahaana xukuumaddu way u magacaawday waxna kama akhrato oo dee maanta kulli rasmi ahaan waxaa ugu jirta halkan hay'ad la yidhaahdo WFP markuu raashin bay siin jirtay laakiin imika raashin bariiskii hayn ayay siisaayo horta gobolka Saraar waxaan ugu baaqaynaa abaaro badan baa soo maray bal sidii abaarahan soo socda ama kuwa hore dhacay oo kale ama kuwa imika taagan oo si looga wada tashan lahaa inaan marka hore samayno mar labaad shacabka waxaan ugu baaqayaa dee ilaahay baa abaartana keena barwaaqadana keena waan ugu shukri naqaynaa abaarta inoo timi abaarna ma jirta biyalaan baa jirta wax laga biyalaan ayaa jirta dee biyahaas saan uga wada tashan lahayn ayn baa noo taalla waa Saciid Cali Cusmaan Xalays iyo Cabdi Aamin Cabdullaahi telefishinka caalamiga ee gobolnimo gobolka Saraar ee degmada Caynaba.